golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maalinta berita waxa la isugu yeeray fadhi aan caadi ahayn waxaana arintani ay la xidhiidhaa iscasilaad uu soo gudbin doono isla markaasina uu golaha hortooda ka jeedin doono gudoomiyaha golahaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaan Ciro ahna murashaxa madaxweynaha ee xisbiga mucaaridka ee wadani arintani ayaa waxa ay ka dambaysaa kadib markii ay soo dhawaatay muddada la qabanayo doorashada madaxtinimada ee Soomaaliland oo aastaysan 13 bisha 11 ee sanadani aynu ku jirno isla markaasina uu gudoomiyuhu yahay musharax u tartami doona madaxweynaha Soomaaliland xogayaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Siciid ayaan leh warbaahinta kula hadlay xarunta golaha waxa uu halkaasi ka akhriyay yeedmada mudanayaasha golaha wakiilada halkan waxaan ka akhriyay warqad ka soo baxday xafiiska xogayaha guud ee golaha wakiilada ku dhamaan mudanayaasha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa ujeedo wargelin fadhi gudoomiyaha golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Ciro waxa uu ogeysiinayaa mudanayaasha golaha wakiilada in maalinta berito Arbaca ah oo ay bishu tahay 02/08/2017 uu jiro fadhi muhiim ah 9 subaxnimo mudanayaasha waxa la idinku adkeynayaa inaad ka soo qayb gashaan fadhigaas cid kasta oo joogta Soomaaliland mudanayaasha waxa lagu adkeynayaa fadhiga muhiimka ah ee uu iclaamiyay gudoomiyaha golaha wakiiladu inay ka soo qayb galaan sida oo kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Cali Yuusuf Axmed ayaa isna waxa uu ka hadlay ujeedada fadhigan aan caadiga ahayn bismillaahir rahmaanir rahiim arrintaas shirgudoonku maanta ayaanu ka shirray waxaan isla garanay in gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi uu berri oo istiqaaladiisa uu keenay kogasaasa la isugu yeeray xildhibaanada golaha wakiilada berri inay ka soo qayb galaan shirkaas